kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada qiimaha badan halkan Bulsha Sports TV markaana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha qodobada idii hayna waxaa kamid ah Manchester United ayaa isha ku haysta saxiixa Rabiot Xhaka ayaa xiiseynaya inuu ku biiro Juventus PSG ayaa hadallo kula jirta Sergio Ramos Real Madrid ayaa qarka u saaran saxiixa Conde intaasi waxay qodobadii warka haatan ku soo dhawaada isagoo faahfaahsan Manchester United ayaa isha ku haysta saxiixa Rabiot Manchester United ayaa guddiga u dirtay si warbixin kaga keenan ciyaaryahanka qadka dhexe ee Juventus Andre Rabiot sida ay qortay Daily Star. Andre Rabiot ayaa suuqa xorta ugu biiray kooxda Juventus sanadkii 2019 isagoo xilligaasi ka soo dhaqaaqay kooxda PSG qandaraaskiisa koowaad ee garoonka Allianz Stadium ayaa ka dhacay dhamaadka bisha June ee 2023. Laacibkan ka soo jeeda dalka Faransiiska ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa dhowr dalab ka soo gudbiyeen qaar ka mid ah kooxaha reer Yurub ee kuwooda ugu xoog badan. balse maamulka Manchester United ayaa hadda diyaar u ah inay soo dedejiyaan saxiixiisa u buuxiyay booska wiilka ay isku dalka yihiin ee Paulo Pogba laakiin Manchester United ayaa rasmi ka dhigi karta xiisaha ay u qabta suuqa kala iibsiga xilli ciyaareedkan Xhaka ayaa xiiseynaya inuu ku biiro Juventus qodobkaasi waxaa eegaya Cabdiraxmaan Maanka ciyaaryahanka qadka dhexe ee Arsenal Granit Xhaka ayaa xiiseynaya Juventus kadib dadaalkiisii tartanka Euro 2020 Arsenal ay u badan tahay inay helaan 20 milyan oo gani si ay u fasaxaan xidigan Roma ayaa raadinaysa 28 jirkan bishii la soo dhaafay laakiin waxa laga yaabaa inay xilligan u baahan tahay inay iska celiso kooxaha doonaya laacib Xhaka ayaa shakhsiyan doonaya inuu ka tago kooxdiisa kadib markii uu cadeeyay inuusan la shaqeyn karin maamuliisa xilli ciyaareedka cusub waxa uuna cadeeyay inuu jecel yahay kooxda Juventus inuu caga dhigto PSG ayaa hadallo kula jirta Sergio Ramos qodobkaasi waxaa eegaya Cabdirashiid kooxda Paris Saint-Germain ayaa rajo fiican ka qabta inay la soo wareegaan geesigii hore ee Real Madrid captain Sergio Ramos wararka ayaa sheegay inuusan jirin tilmaamo lagu xaqiijin karo xidiga inuu ka dago kooxda Paris Saint-Germain sanadkan daaficii hore ee Real Madrid Sergio Ramos ayaa hadda ah wakiil xur ah waqtigan 35 sano jirkan 12 bilood ee la soo dhaafay waxa uu la dhibaatunay dhaawac laakiin hadda waxaa loo maleynayaa inuu ku biiro PSG kabtankii hore ee Real Madrid ayaa doonaya qandaraas 2 sano ah laakiin agaasimaha isboortiga PSG Leonardo ma aqbali doono heshiiska uu doonayo Sergio Ramos waqtigan Real Madrid ayaa qarka u saaran saxiixa Conde wargeyska Sports ayaa sheegay in Real Madrid la soo saxiixatay David Alaba laakiin ay u baahan tahay daafaca kale iyadoo ujeedkoodu yahay in aad loo adkeeyo booskii uu ka faaruqay Sergio Ramos oo ka tagay muddo 16 sano uu joogay Real Madrid sidoo kale waxaa jira fursad oo Rafael Varane uga tagi karo xilli ciyaareedkan iyadoo qandaraaskiisa ay u harsantahay 1 sano oo kaliya mid ka mid ah bartilmaameedyada ayaa lagu sheegay inuu Conde waxa uu ku soo barbaaray kooxda Sevilla waana mid ka mid ah daafacyada mustaqbalka ee Yurub ka xamaasha balse Josep wuxuu sheegay in Real Madrid aysan la soo saxiixan doonaan Conde maadaama ay kooxda Sevilla ku doonayso xidigan adduun dhan 80 milyan laakiin Real Madrid ma bixin karto lacagta intaas leeg Martinez ayaa ku faraxsan Inter Milan warbixintaasi waxaa eegaya Cabdiraxmaan Maanka Kamano ayaa ku adkeysanaya in xidigan Lautaro Martinez uu ku faraxsan yahay kooxda Inter Milan inuu waqti kale la sii qaato maalmihii ugu dambeeyay waxaa laacibkan aad loola xiriirinayay kooxaha ay kamid yihiin Barcelona iyo PSG laacibkan ayaa la xiriirinayay inuu ka tagayo kooxda Inter Milan xilli ciyaareedkan laakiin wakiilka xidigan ee Kamano ayaa u sheegay warbaahinta Talyaaniga in Lautaro Martinez uu jaanis sii doono kooxdiisa waxa uuna beeniyay inuu xiriir dhow la leeyahay maamulka kooxda Barcelona Mbappe ayaa markale u furay daaqada Real Madrid iyo Liverpool warbixintaasi waxaa eegaysa Qamar Maxamed Cumar kooxaha Liverpool iyo Real Madrid ma awoodi karaan inay la wareegaan xidiga Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe xilli ciyaareedkan sida ay sheegayaan wararka Mbappe waxa uu soo jiitay kooxo fara badan waqtigan maadaama uu ku dhow yahay sanadkii ugu dambeeyay qandaraaskiisa PSG waxaa sidoo kale la xusay 22 jirkan uusan doonaynin inuu mustaqbalkiisa u hibeeyo kooxda ka dhisan horyaalka Faransiiska ee PSG laakiin arintan ayay jaanis u tahay kooxaha Liverpool iyo Real Madrid oo sugayaan go'aankiisii ugu dambeeyay taageerayaasha Liverpool ayaa dhawaan maamulka ka dalbadeen in kooxda lagu soo biiriyo Kylian Mbappe maadaama ay kooxdu fasaxayso qaar ka mid ah xidigeeda Kylian Mbappe wuxuu matali doonaa mustaqbalka soo socda ee kooxda Liverpool xilli ciyaareedka soo socdo kadib niyad jabkii xumaa ee horyaalka Premier League xilli ciyaareedkii dhamaaday ee 2020 ilaa 2021 Real Madrid ayaa doonaysa inay iska iibiso Luka Jovic Real Madrid ayaa raadinaysa inay iska iibiso xidigeeda Luka Jovic xagaagan wargeyska Marca ayaa sheegay in 2 sano kadib imaanshaha Luka Jovic ee kooxda Real Madrid ayaa kooxda xilligan doonaysa inay iska dirto waqtigan
AC Milan ayaa loo maleynayaa inay xiiseynaysaa dalabka xidigan balse Real Madrid ayaa doonaysa inay soo ceshto qiimada 60 milyan oo ay qarash gareysay 2 sano ka hor. Luka Jovic ayaa kaliya 5 kulan u saftay Real Madrid xilli ciyaareedkii hore ka hor inta uusan amaah ku bixin halka xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee kooxda uu u dhaliyay kaliya 2 gool 27 kulan oo u saftay kooxdiisa Real Madrid. Haaland ayaa markale sheekadiisii ka bilaabatay Chelsea. qodobkaasi waxaa eegaya Xasan Cumar Xuseen. Chelsea ayaa qarka u saaray inay gacanta ku soo dhigaan laacibka maalmahanba ay ku raad joogeen ee Haaland iyadoo Thomas Tuchel uu isha ku hayo qaabkii uu xoojin lahaa kooxdiisa xilli ciyaareedka cusub ee Premier League iyadoo xilli ciyaareedka soo socda ka harsan tahay kaliya 6 isbuuc. Tababaraha kooxda Chelsea ee Thomas ayaa durba ka hadlay fursadda kaliya uu kula soo wareegi kara laacibka in marka hore laga dhaadhiciyo inuu kooxda Chelsea ku qanacsan yahay kadib ayaa go'aan ka gaari karnaa dalabka xidiga Haaland. intii aan kusoo gabagabeynayna wararkii ciyaaraha Bulsha Sports TV anigoo Ahmed Ismaan waxaad kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.